dalada bulshada rayidka ee Sons ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay falkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee loo geystay dad rayid ah oo deegaanadaas u tagay iyagoo nabadgelyo doon ah muddo ku noolaa. Gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ee Sons Cismaan Muxudiin Shaatax ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay in dad rayid ah lagu beegsado heeb iyadoo aan loo eegin sharciga isla markaana aanan loo aabiyeelin caruurta waayeelka haweenka. waxa uu sheegay in dalada Sons ay soo jeedinayso in aan falcelin qalad ah looga jawaabin falkaas, waxaana uu dowladda federaalka ugu baaqay in gurmad heer qaran ah oo degdeg ah loo fidiyo dadkaas dhibaatada ka soo gaadhay deegaanka Laascaanood. waa wax aad loogu xumaado in dad rayid ah lagu beegsado heeb iyadoo aan loo eegin sharciga isla markaana aanan loo aabayeelin caruur waayeel iyo haween, waana mid ceeb ku ah dhaqanka Soomaaliyeed, taariikh badan ku reebi doonto shacabka Soomaaliyeed. dalada bulshada rayidka waxa ay ku tilmaamaysaa falkii ka dhacay deegaanka Laascaanood inuusan lahayn wax qiil ah oo sababi kara in dad rayid ah oo isugu jira caruur waayeel iyo dumar si lama filaan ah guriyihii ay deganaayeen iyo hantidoodii looga soo masaafuriyo, waana mid ka soo horjeeda dhaqanka Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah. dalada bulshada rayidka waxay aaminsan tahay in falkii ka dhacay Laascaanood uu ahaa mid xadgudub ku ah xuquuqda bini'aadamka, waxayna soo jeedinaysaa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo falkaas cidii ka dambeysana sharciga la soo hor istaago. dalada bulshada rayidka ee Sons waxa ay soo jeedinaysaa in aan falcelin qalad ah looga jawaabin falkaas, waxayna ugu baaqaysaa dowladda federaalka in gurmad heer qaran ah oo degdeg ah loo fidiyo dadkaas dhibaatada ka soo gaartay deegaanka Laascaanood. dhinaca kale gudoomiye Shaatax waxa uu ka hadlay xiisada ka aloolsan deegaanada Galgaduud. waxa uu baaq u diray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ururka Al-Sunna wal Jameeca. waxa uu sheegay in dagaal xilligan uusan faa'iido u lahayn bulshada Galmudug isla markaana loo baahan yahay in wixii tabashaha si wada jir ah loo wada xaliyo. dagaal xal uma aha dhibaatooyinka maanta ka jira dalka, sida kaliya ee looga bixi karo waa dadka oo isku duubnaado, maamul hufanna helo. si taas loo gaarana waa in la isku dulqaataa, maamulada jirana la tixgeliyo. bulshada rayidka waxay aaminsan tahay in fikradaha siyaasadeed ee isdiidan ee dalka muddo ka jiray inay sababeen dad badan oo Soomaaliyeed inay ku dhintaan, qaarna ku barakacaan, qaar kalena qaxooti dalka dibadiisa ugu hayaamaan. sidaas darteed dagaal dhiig ku daato xal uma aha dhibaatada dalka jirta. waxaan ugu baaqaynaa maamulka Galmudug iyo ururka Al-Sunna ee uu hogaamiyo Sheekh Shaakir in aysan xalka ku raadin dagaal oo wada hadal laga sameeyo arrimaha is-afgarawaaga ka jira iyadoo la dhowrayo lana tixgelinayo maamulka halkaas ka jira ee Galmudug. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta. ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara. ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawlaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. in ka badan $126 oo caalamka ah ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shakhsiyaad intaba. adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bangigaaga. adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus, adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. تعالوا واكو السلام
سلام مرة يا أول عقتي بيلكي مانت lacagtaaga qiimo badnaa tani أنت السنة كنت براي ما أنت هداد العقهين أرجع يدافع معقول ما الحمد لله لا ما تسكله yashar allah ila soo cusaan u sheega hal xaji waxa way laba naad ku toosii shaaftaan u ka yarabaan marka xoogoo iyo dulqaad بار حلن كوها يا ما كل ما هاي شايف akhbaar farxad laan ku hayaa tircan akhbaar farxad laan ku hayaa ii sheeg taas هاورس iyada ma hor هاورس horta aan daa akhbaarta farxadda la ku sheego u shubo oo ku guuleyso samtayha waxaan ku guuleystay ina ooya iga soo dhamarda ma burinayso bajaajan ku guuleystay معقول ما anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay daka bacd dhagaan ku dhaga bajaaj lacagtan kale saariga haya farxadda ii sheeg anna waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahab ah والله shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaariha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan